xarunta Hashimi ee dhaqan celinta iyo daryeelka caafimaadka oo laga furay Keserian gobolka Kajiado rajo cusub ayaa ka ifaysa Keserian oo ku dhow caasimada dalkani Kenya ee Nairobi kadib markii xarunta Hashimi ee dhaqan celinta iyo daryeelka caafimaadka si rasmi ah loogu daafuray halkaasi maanta xaruntan oo lagu aasaasay aragti ku dhisan bogsiin iyo isbedel waxa isu keentay dhaqaatiir khibrad leh culimadiin iyo khubaro ku takhasusay daweynta iyo la tacaalida caadooyinka xun xarunta waxay adeegyo dhameystiran u fidin doontaa dadka la halgamaya muqaadaraadka caqabadaha caafimaadka maskaxda niyad jabka balwadaha iyo dhibaatooyinka anshaxa iyadoo sidoo kale kor u qaadaysa ruuxda iyadoo loo marayo aqrinta quraanka kariimka iyo talo bixinta xafladda furitaanka oo si weyn loo soo agaasimay waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin dawladeed ganacsato culimo Soomaaliyeed oo caan ah bulshada deegaanka iyo shacabka Keserian tani waxay muujisay muhiimadda xarunta u leedahay bulshada iyo doorka ay ka ciyaari doonto xalinta caqabadaha waaweyn ee horyaala bulshada maanta xarunta waxaa hogaaminaya Sheekh Maxamuud Sheekh oo si weyn loogu yaqaan Hashimi asaasaha xarunta Sheekh Hashimi waxa uu haystaa master degree cilmiga dawooyinka dhirta oo ka qaatay Qaahira Masar waxa uu sidoo kale yahay agaasimaha guud ee xarunta caanka ee Hashimi Herbal Center ee ku taala wadada 6 ee magaalada Nairobi barnaamijyada xaruntu waxay diiradda saari doonaan daweyn kaliya ma aha balse sidoo kale dib u dhexgelinta bulshada iyadoo bukaanada lagu qalabeeyo xirfado nololeed tababaro shaqo iyo hanuun diineed si ugu soo noqdaan bulshadooda iyagoo muwaadiniin wax soo saar leh oo mas'uuliyiinta goobta ka hadlay waxay sheegeen in habkan uu yahay mid lagu jebinayo silsilada balwadaha iyadoo la daweynayo xididada caafimaad iyo bulsho ee mushkilada hogaamiyaasha bulshada ayaa soo dhaweeyay hindisahan iyagoo sheegay in dagaalka lagula jiro muqaadaraadka iyo balwadaha aan qoysaska kaligood ku koobnaan karin waxay ku amaaneen xarunta inay tahay talaabo muhiim ah oo isku darta sayniska diinta iyo qiyamka dhaqanka si loo dhiso adkeysiga dhalinyarada iyo in qoysaska dilaacay dib loogu midayo xaruntan waxay leedahay deegaan wanaagsan oo ku yaala Kajiado guryo iyo agab tayo leh ilaalin amni oo CCTV ah macallimiin wax ka dhigaya quraanka iyo culumta casriga cunto gaar ah oo loogu talagalay bukaanada masaajid lagu tukado iyo goobo ciyaareed oo lagu ciyaaro kubadda laliska kubadda kolayga iyo ciyaaro kale iyadoo himiladoodu tahay soo celinta karaamada dib u cusboonaysiinta himilada iyo dhismaha nolol cusub xarunta Hashimi ee dhaqan celinta iyo daryeelka caafimaadka waxay ku talaabsan doontaa saameyn waarta iyadoo u bedelaysa xanuunka fursad iyo dib soo celinta rajada nolol cusub kuwa rajo beelay waxay faafahin dheeraad ah oo ku saabsan xarunta Hashimi waxaad kala xiriiri kartaa eber 714 ama si kale hadii aan u dhigo 0714711878 runtii rehabilitation kuma cusbo Nairobi amba geyga Soomaalida kuma cusbo waa wax mar kasta furan oo meel kasta ka furan laakiin wuxuu ku kala duwan yahay mumayizaad waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin baa jira marka waxaan ku hormari lahaa anagu marka aragnay dhibta jirta dhaawaca soo gaadhay ciyaalka Soomaalida caruurtaya kuwa yar iyo kuweynba oo tacliintii ay runtii waxa weeyaan ay beerdareeyeen waalidiin badan oo ooyeysa marka waxyaalahaas oo dhan oo damage oo dhibta soo gaadhay waalidka aragnay waxaan door bidnay inaanu sameeyno markas namuudaj ah namuudaj macnaheedu waxa weeye waa markas bal wuxuu kaga duwan wixii hore namuudajka waxa kamid ah markaan runtii waxa weeyaan isku geegeynay inaan horta tira kooban qaadano tira kooban oo ugu hooseeyo 25 ilaa 30 waa 25 ilaa 30 waxay yiraahdaan idaa fasada tabaquna idaa kathura tabaquna fasada almaraq yani hadii la badiyo waxaan tayada meesha ka baxaysa marka taya ahaan saan tayayno dad yar oo kooban tira yar oo kooban inaan ku bilowno oo sidaa ku wadno ayaan horta kow dooranay midda labaad oo iyadana aan isniri waxa weeyaan waa mumayisaadka markasku leeyahay muallimiin waxa ogsoonahay inta badan meelaha riyaabka lagu hayo waa la daaweeyaa dadka laakiin wax baritaanku runtii aad ugu yar yahay markaan isku darno wax barasho iyo haddana daaweyn labada markuu helo wixii kale waa ku dardarsi marka waxa kamid ah macallimiin khaas ah oo u dhigaya maadiga sida arday badan waxa imaqlan la soo wacay inta badan iskuulka sanadkii u dambeeyay oo ay dhameeyeen iskuulka ay sii dhameeyeen for 4kii
dhinacan bidixda u qaaday liftiga arbaray wadadana iskuulkii dhinac maray waalidiinta markaa oo intaa ku soo tabcayay oo waxbarashadoodii soo waday markuu ilmihii heerkii u dambeeyay gaaray iyo dhulka ku dhacay taa markaa waxaan sameynay si aan markaa uga faa'iideysano inaanu ardayga la noo keeno halkan aan ku hayno waxbarashadiisii iyo macallimiintina meeshan ugu keeno deedna marka u dambeeya imtixaanka uu galayo uun la qaado oo iskuulka la geeyo taasi waa qodob weeyaan islaana wad kaga duwan tihiin meelaha rehabilitation kale midda labaad oo iyadana aan ku soo darnay waxa kamid ah iyadana daruuriyaadka kamid ah aan isleenahay waa in ay goobtu haato goob diimeed oo lagu sameeyo runtii waxa weeyaan hadda waxa ugu horeeya marka laga hadlayo diinta nabi sallallahu alayhi wasallam markuu tagay min Makka ila al-Madina magaalada Madiina asasaha masjid buka asaasay limaada لأن الإسلام كردن جامعة ديسا ماشي كوريجيا منبعيسو ومسجد ويا مركا أنت أنا شغلة ماذا بلاد واحد كبلوني المسجد كمساجد ده كيالا جدها وقاضي أرض إلا صدنا إلا عشان يلا بعتن أنت أنا قلت لك هني تاس أنا مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحولها يعني مساجد وحيوي ينقف مسلم كا وعمل أو هيئة oo barbaarinaya oo toosinaya waxa kale oo ku darnay culumta islaamka yadana sida fiqhigi xadiiski tarbiyadii wax kasta oo ku saabsan diintana inuu markuu meeshan ka baxo isaga oo macluumaad badan ka haysta diinta inuu meesha ka tago waxaan ogsoonahay hadduu qofku diinta awna aqoon u lahayn ama markaas oo kale waxa weeyaan awna salaada ilaahay fariid tukanaynin wax kasta oo fududaanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة أي قفك توسيسة ومنكر كالليحسة قف كستا كل عي وحيالها طراقسك وحيالها متى حمانتها أخلاقياتك دمان وحكوك وقف عن صلاة دي ستوسنين because لا يحلي إن الصلاة صلاة أي تنهى عن الفحشاء فحش كوين مجرو طراقسك ورقم واحد munkarka xumaanta oo dhan ilaa markaas ka leexinaysa marka salaadan waa ku tarbiyanayna masaajid baan u furnaa halkan gudaha ku yaala oo isagana imaamkiisii leh waxyaalaha markaas waxay ka mid tahay aan isleenahay way ku cusub tahay ama soo ku soo kordhiseen ayay ka mid tahay waxa ka mid ah dhakhtar waa laba dhakhtarka uu joogaa dhakhtarka lagu imanaya laba dhakhtar oo iyagana dhakhtar guud oo caafimaadka iyo dhakhtar waxyaalaha daraagiska ka saacidaya isaguna waa ku soo kordhinay isagana waxa isleeyahay labadaasna waa laba muhiim ah ee markaska waxa kamid ah taam mutawazin waxa ogsoonahay inta badan dadku meel isku yimaadaan waxa dhuma tayada xitaa cuntada dadka la siinayo haddii cunto fiican qofka la siiyo aqligiisuna wanaagsanaanaya al-aqlu as-salim fi jism as-salim aqliga wanaagsan wuxuu ku jiraa jidh saliim oo caafimaad qaba ku jira taasna iyadana waxaan nidhi nin baan ugu yeedhnay oo mutakhasis ku ah oo jaamacad uga soo baxay oo wixii miinka maskaxda caawinaya u sameynaya soo markaas waxa weeyaan qof caafimaadkiisu jismi ahaan aqli ahaan uga baxa meeshan waxa kamid ah sidaas oo kale تركيز خاص للنظافة لأن النظافة من الدين أو من الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم نظافته حكمتها الدين وحنقصونا إمالها أنت بدن لفورة وإسكرسار تدخل بديهين نظافة دي بعد ما يسا عافمات كبا هلابيا قفك لو كانت وحتر لهيد أدو كسير دي سعادك لأنه قفك وحصال لعبارة يساقي وقفك بابايبا مركا وحيالا نسلنا هاي تركيز خاص أو سارة نظافة دوادو جيدان حتى قدها داد كشان qof walba masquushiisa oo gaara laba sariirood wax ka badan la dhigi maayo meelaha aan soo maray aniga dib baan ugu soo gaadhay oo dad badan baan geynay meelahaas waa afar wax isku saarayeen saddex sariirood isku saara markii halkii qol isku geeyo 10 qof bilaa calaykum caafimaadaan soo kordhay masaxanuun qofkii markaa wax ka soo baxaya isaga confuse kaliya markaa madaxiina wareerayo isaga markaas wareersan soo noqday laakiin waxaan siinay bi khaasa oo loogu talagalay inuu qofku abu buuqa kaga soo fogaaday hadda isli wax ka socnaa malanaya 1 hour because meeshan apartmentigu waa meel waxa weeyaan apartmentigu aad u fiican weeye xagan beer baa ku jirta oo ku sii xigta oo galeydii iyo spinachkii iyo wixii loo baahnaa oo natural looga beeray taasna marka waxa weeyaan waa waxyaalahan isleeyahay runtii way anfacaysaa ama way kaga duwan yihiin meelaha kale waxa kaloo kamid ah si guud
dadku marka meelahan oo kale la keeno qaar baa fakadaad maqlaysa waalidkii meel buu geeyey ilmihii baa markaa haddana duurka laga heli waxaan isleenahay runtii muraaqaba shadiida jiddan ayaa ku samaynay oo waxa weeyaan waayarkaasi jiifa iyo waayarkaa dheer iyo haddana electri aan kusii xidhnay oo hal qof markaa weliba haddana safe electri aan kusii darnay haddana qof hadduu leerku idagu damage garan karaaye taasna waan ku samaynay waxaa kaloo kusii kor kaga sii xidhnay waxa alamka hadduu qof taabto amba uu bax yidhaahdo ku qaylinaya taasna waxaan isleenahay waa qaybta security oo very tight ah una ilmahaasi waxa weeyaan marka gudaha hadday tahay hadday dibadda tahay qol kasta iyo meel kasta TV waxa lagu sameeyo kamarad baa lagu sameeyo lagu xidhay oo sawtan wa suura duuba saadana qofkii halku dhaqdhaqaaqiisii xarun baa ka dhex sameeynay lagala socdo taxarukaadka qof kasta oo meesha ku jira wada ogsoontiin qof kasta oo daraaga soo isticmaalay sometimes kill yourself aday soo isdiliyaba marka waxyaalahaas aan uga hortagno meel kasta waxaan ku sameeynay qayb security-ga oo safe garaynaysa oo lagala socdo waxa kaloo kamid ah qismu tamaariin meelaha sport yar ku sameeyaan iyadana hadda wadnaa oo hadda meel waxa weeyadana kanta ka sii weyn baa oo sport ku sameeyaan ma wadnaa imiga laftigeega basketball balkaas aan ku sameynay ku sameynayeen baali muxuu ahaa kubaddi qayb gym aan ku soo darnay iyadana marka waxa soo dhan waa al-aqlu saliim fi jismi saliim ay markaas waxa weeyaan uga soconaa jazaakumullahu khayran kulli wax dheer iyo kale oo ziyaadi ma jirto intii aan islaahay waa waxyaalo oo aad ku soo kordhiseen oo kaga duwan tihiin inaas ugu weyn oo wad ogsoon tihiin yada xagga matalo kale dadku markay bataan wax badan ba isbedelayo wax dhumaya tayada dhumaysa jazaakumullahu khayran inaas ku soo koobi lahaa jiifka waan salaamayaa dikama qaybta shurta oo booliska haysta waa salaamayna maama kaniini oo meeshan waxa weeyaan member iyado kolkii horeysaan naga kareyso gurigan ownerka waa salaamayna saygeeda iyadoo neybaha oo jiiraanka iyadoo waan salaamayna dhammaan jiiraanka oo dhan waan salaamayna culimada axbaabta kulli soo dhawaadaan leenahay jazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh